magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maanta waxaa la dhagax dhigay garoon lagu ciyaari doono kubadda kolayga iyadoona dhagaxdhagaasna ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta gobolkaasi. wariyahana halkaasi beledweyne ayaa inooga soo diray warbixinta ku aadan dhagax dhigaasi. maamulka gobolka hiiraan iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka hirshabeelle ayaa markii ugu horeysay waxa ay dhagax dhigeen xarunta basketballka gobolka hiiraan oo muddo 25 sano ah burbursanayd. waxaa kale oo maamulka gobolka hiiraan iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo hubka dhigista maleeshiyaadka dowlad goboleedka hirshabeelle ay tartan ciyaaro oo ay ka qayb galeen 500 oo dhalinyaro ah oo loo dhameystiray qalabkii ciyaaraha ay u fureen dhalinyarada magaalada beledweyne. gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jayti cismaan ayaa sheegay in ay muhiim u tahay xaruntan la dhagax dhigay bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan, isagoona ugu baaqay in bulshadu ay isku tashtaan oo dalkooda ay dhistaan. adeer inaan sugno maaha hay reblaayo aaway inaan ku hayno maaha, waa inaan gacmaheena wax ku qabsano, waa inaan ku talagalno inaan wax dhisa karno, waa inaan dhisno hay-adaha dawliga ee maslaxada caamka looga shaqeeyo. cabdiqani jenyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sheegay in xaruntan ay dhagax dhigeen ay noqon doonto mid caalami ah, waxaana uu sheegay in dhalinyarada hirshabeelle ay shaqo u abuuri doonaan. waxaan aad ugu faraxsanahay in la dayactiro oo aan maanta dhagax dhignay, wuxuuna noqon doonaa garoon caalami ah oo lagu ciyaaro ciyaaraha basketballka, volleyballka iyo handballka. saddexdaas ciyaarood way isticmaali karaan. gudoomiyaasha dhalinyarada iyo xiriirka olombikada gobolka hiiraan ayaa soo dhaweeyay dhagax dhigga iyo furitaanka tartanka ciyaaraha dhalinyarada beledweyne. way ka qayb qaadanaysaa shaqo abuur, way ka qayb qaadanaysaa maaragtay inay dhalinyarada ay u soo jeestaan ay ka mashquulaan waxyaalihii ku jiri jireen. waxay ka hilmaami doonaa maaragtay qabiilkii iyo maaragtay iyo qurankii iyo wixii maaragtay ku dhex jiray, way barooniga qabiil ma lahan. runtii waxaa farxad inoo ah inuu nagala soo qayb galo gudoomiyaha gobolka iyo wasiirkii sportska hirshabeelle. wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha hirshabeelle cabdiqani jenyo ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay furitaankan, waxaana uu sheegay in ay horumarin doonaan garoonada deegaanada hirshabeelle, isagoona u mahad celiyey cid walba oo hawshan gacan ka geysatay. waxaa halkan ku ciyaaraya 20 koox oo dhalinyaro ah oo min 20 ah iyo 5 qof oo guddi ah. intii uu burburka dhacayna ma aysan dhicin inay ka dhacdo hirshabeelle arrintaas oo kale. anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan u mahad celinayaa nin kasta oo ka soo shaqeeyey barnaamijkan quruxda badan. dib u dayactirka xarunta basketballka gobolka hiiraan iyo furitaanka tartanka ciyaaraha dhalinyarada magaalada beledweyne ayaa qayb ka ah howlaha horumarineed ee ka socda magaalada beledweyne, taas oo ay maalgelinayso dowladda Norway. aadan cabdi axmed, telefishinka caalamiga ah Universal, magaalada beledweyne. kaasi wuxuu ahaa aadan cabdi axmed warbixintaasi inooga soo dirayay magaalada beledweyne.